waa mid ka mid ah gobolka Sanaag meelaha ugu biyaha badan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaankanina waa deegaan hodan ku ah wax soo saarka balse dadkani dhibaato waxay kala kulmaan gaadiid ku iman lahaa oo wadadana ay ku adag tahay waxaan ku suganahay deegaanka Hartiimid oo ah halka ay wadadu ka socoto qiyaastii 60 kiiloomitir dhinaca galbeedka kaga toosan magaalada Cergaabo wadadan Hartiimid aan joognaa waa mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee kaabayaasha dhaqaalaha dalka haday tahay beeyadii haday tahay xoolihii haday tahay wax soo saarkii beeraha haday tahay waxyaabihii kale ee wadanka ka soo baxayay macdantu ka mid tahay wadadan waxa ka muuqda burbur baahsan kadib markii la waayay dayactir ساسترت دتك دجان كو تاكست لهذا با وحي بلابين إني وضد كشقيان دتك وضد كشقينا يا وضد طيرة وضد نهدي بحوك ستة وضد إسيري هاي إسكي وحقب صلا لبقى يطبن بلاد يحبينه بانو كشقيني كل ما بيعص بانو كسر بلون وتاهدا تاجنتين شقدي أي صعانيسا أو نص صعانيسا اللهم صل على محمد عيدا كهذا كشقية وعيدا دورة كشقية وحنو بلونا لحد أرودني قال لك رافر بانو شقينا قال لك ضمنا أفر هيدا كير صدح بلاد بين السيسة حوجي أنت كل جاين لك sidoo kale dalxiisayaal fara badan oo dunida dacaladeeda ka yimaado oo soo booqda goobta taariikhiga caanka ah ee Gudmo Biyaas ayaa iyaguna dhibaato fara badan kala kulma wadada kuwaas oo dalka soo geliya dakhli dadka deegaankan ay ka helaan fursado shaqo dalxiiska faa'iido badan baa naga soo gasha haday makhaayadaad tahay haday hudheelada tahay haday beedkeeda dhulka ku soo degayaan tahay haday guryaha tahay haday beedkeeda leeyahay dad sadcaalka mid si raaca haday tahay الله يا عنتنا وريا بدن عرنتك وصدق مكة كحيا وينا أنتك يا رعيده waxa kale deegaankani uu qani ku yahay xabkaha oo dad badan oo reer Soomaaliland ay ka helaan fursado shaqo kala duwan beero ba jira cashuur baa nala ka qaada hadii beedankeeda leeyahay wax nala ka qaabeeyaa jirta cashuur baa laga qaada waxaanu ari baa jira cashuur baa laga qaada marka la iibsado oo magaalooyinka la geeyo waxaanu doonaynaa in cashuurta nala ka qaado inta wax nala kaga qabtaayo dawladdu wax nooga qabataa oo ay wax dib noogu soo noqdaan oo dadkii bulshadii meesha deganeed ee wadada waraabinaysay ee xoolaha lahayd ee beedankeeda waxaan laga keenay in wax loogu qabto roobka yar ee soo helaa waxa weeye inta yar aanu qabanay markaba uu ka qaadaya allahumma salli ala muhammad waxa kan waxa weeye ciidanu istaagi mayso haday wadadu sidan ku sii socoto waxa halis kaliya nafaf fara badan oo la badbaadin kari lahaa oo isugu jira dadka laaga ka dhaca dadka habeesada cunto hooyooyinka uur kale iyo dadka xanuunada ku soo boodaan kuwaas hadhow fursad uma heli doonaan inay helaan adeegyo caafimaad oo gurmad oo degdeg ah indeerkii sameeyay uu naga dhintay dhagax dhadhaab iyo dhagax buu isa saaray dhagaxa dhadhaabta hadii kala foqaan indeerka loo heli maayo noo sameeyo waxaanu leenahay horta dawladdu waa inay aad iyo aad u danayso oo ay taariikhda wadada ogaato oo ay abaalkeedii mariso tan kale qurba joogta war waxaasaan feeriyo laad ku wadnaaye idinkuna ragina qurba joogta ee dalka u dhashayow waana aragtaan dhismaha iyo horumarinta wadadani waxa wax weyn ka tari doontaa kobaca dhaqaalaha dalka shaqo abuurka iyo xoojinta wax soo saarka dalka